waxaan aniga iyo gudoomiyuhu halkan u nimcaawayna ka hadalno mawduuca maanta uu ka hadlay wasiirka warfaafinta maalmahana ay xildhibaanada kulmiye ka hadlayeen ay suuqa marmarinayeen arrinta xeerka baarlamaanka horyaala xeerkii law number 14 xeerka axsaabta iyo ururada ee baarlamaanka waxaan u aragnaa inay sharci darro tahay ugu horeyn in wax baarlamaanka yaalla oo golihii awoodda u lahaa hor yaallo in laga hadlo oo suuqa lagaga hadlo oo ra'yi qof waxaan arkaya wasiirka oo leh waxa madaxweynuhu aaminsan yahay iyo waxa ila tahay war sharci ma noqdo waxa aaminsan tahay waxa madaxweynuhu aaminsan yahay waxa kula tahay toona dalku sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay xeerar buu leeyahay haddii la ixtiraami waayo xeerarka oo sharciga la ixtiraami waayana cawaaqibta ka dhalata waa la garan karaya marka waxaan leenahay sharciga hal ixtiraamo dastuurka hal ixtiraamo xeerarka dalku leeyahay hal ixtiraamo ra'yigaagu cidna ma khuseeyo adigaa qaba waxa uu aaminsan yahay madaxweynuhu iska aaminsanaa wixii sharciga dastuurka ku qoran ee xeerarka ku qoran ayaa shaqeynaya waxaan ku darayaa xeerka dastuurka waxa ku qoran qodobka 37 wuxuu tilmaamayaa awoodaha check and balance-ga ama dheelitirka dawladnimada in saddexda waxa weeye aqal ama saddexda hay-adood ee dhardhaar ee dalku ka kooban yahay ay kala madax bannaan yihiin oo aanay isfaragelin oo uu dastuurku reebay faragelin kasta oo dhardhaar kale oo dhardhaar kale u gudbo marka waxay ahayd wasiirka hadalkiisu faragelin cad qodob gole hor yaalla oo xeer gole hor yaalla oo laga doodayo waxay ahayd faragelin cad waxaananu leenahay hay-adaha sharciga u yaal iyo madaxweynaha oo ah kii yani dastuurka inuu ilaaliyo ahaa inuu tallaabo ka qaado waxaan uga gudbayaa marka laga yimaado taa mamnuucaysa madaxweynuhu wuxuu soo celiyey xeerka iminka uu ka hadlayo xeerarka kuwa le waa dhaqangal isaga iyo qayrkiiba xeerarku laba dariiq bay ku dhaqan galaan madaxweynuhu qodobka 77 ee dastuurka ayaa xaq u siinaya inuu saxeexo 21 cisho gudahood marka uu saxeexana dhaqangal buu noqdaa oo faafintii rasmiga ahayd baa lagu soo saaraa wuxuu tilmaamayaa sidaas la mid ah qodobka 78 inuu haddii codkii uu waayo haddii uu ku qanci waayo in lagu celinayo golaha baarlamaanka oo shir guddoonka loo geynayo weliba kuwa moodaya in waxa weeye suuqa la isugu dhiibayo ee aan kala garanaynin waxyaalaha sharcigu dhigay iyo waxyaalaha maamulka ah waxa loo dhiibayaa shir guddoonka ku qoran wuu caddeeyo dastuurku maaha wax qof ra'yigii xeerkan oo aynu ku ogeyn in golihii hore baasgareeyo gudbiyey waxa la yaab leh shalay buu hor yaallay miiskooda xukuumaddii inay kala hadasho kulmiye waa dayowga ku dhacay kulmiye iyo hoggaankiisii madaxweynihii iyo dawladdiisii dayowga ku dhacay baa ka muuqanaya xeerkii shalay hor yaallay ee madaxweynuhu soo celiyey ee uu soo diiday ee uu weliba sababeeyey ee uu yidhi dastuurku ka hor imanaya bal hadda u fiirsada isaga qoraalkiisa eega waxa uu ku sababeeyey inuu dastuurka ka hor imanayo wuxuu ku sababeeyey inuu xeerarka kale ee dalka sida xeerka 19 ee doorashooyinka inuu ka hor imanayo bal hadda u fiirsada madaxweyne baa caynkaa yidhi wasiirkiina wuxuu waa sharci waa dawlad marka aan iska hor imanayso aan sharciga ixtiraamayn madaxweynaha wasiirkiisii waa wax la yaab leh kuwa laga yaabo inuu fahamka ka qaldan yahay oo ku daba rogan yahay ee moodaya xeerka celintiisu inay tahay marka waraaqaa la soo qaadee la keeno baarlamaanka waxaa ku qoran dastuurka oo haddaanad sharciga garanay ula tagtaa kolley ciidunba idin su'aalayo malaa sharcigaydaan garanayne waxa weydiisaan kuwa garanaya wuxuu leeyahay xeerku dastuurku wuxuu leeyahay marka madaxweynuhu saxeexo ayuu dhaqangal yahay markuu madaxweynuhu saxeexo marka labaadna waa laba digreeto madaxweynuhu marra wuxuu saxeexaa inuu dhaqangal yahay marra wuxuu ku celiyaa in uu dib ugu celinayo haddii way ka muuqataa dayowga kulmiye ay leeyihiin xildhibaanadii kulmiye iyo wasiiradii kulmiye hadday leeyihiin madaxweynuhu
وحوي وقت جيسي كموس حين وباك ديتي بكوس حي ده كرايم باك دلنا يتاسو مدحوينه وخيامي دستوركي فرعي تابع كدلنا يسا يجو تها عدين أنا قولي ما نانورن أنا قولي ما نانورن لكن سو حكدلنا يسا عواقبتها إن يهدان مدحوينه صحيحيسو صحيح هل كان كقرن معلمي لوجو تلاك عليه لوجو مسحين معلومة كبدن كدبوا صحيح مدحوينه أو باك ديت جريو ديت كوبوس كذا قرن مركوا خيامة قرن تاسون عواقبتها كدلنا يسا والله قرنه مركوا حملها النهاية الشرعي هلا احترامه وزير هذا ديدر أنكت كعيله ورهذا الله فريا وارهذا هدي الله فريا أنا عقدت كما قبل شلي أنا كوي فريا بانهاي ما أنتنا هدي الله فريا وأنا ترتمينا وحنا نوارجنا كل مي هذي دونا وينوس أركي دونا إن شاء الله تعالى ميدان واسع بريت الله فري دونا مالين كيدي لقى بصورة سينكر الأكيس مالين بيلا هاي لبي الله بعتنك ديسمبر بيكو قرنتها وحكوه رئيس الدورة شدة مدحتوية دي هدان بقى يدو كشرين ميدان واسع دورة شدة مدحتوية دي نقلنا نكى مدحويناه هلا أيها فري دونا وشوفوا فيرسو حدا دوني سينا تيرم كطبان كسنة ضوضة كصوير يسوع ده كمدحوينا أنا وينو كصويرين حدا لا هاي سنة بقى كده ما أنا عن كيرينه مدحوينا أنا سنة باودي ماني دايما كانوا كبلونه ده كو مشكلة بماهي كو أن كبر مدحوينا على صوير عمري يسوع حدا هكذا ودي سوى عمري يسوع لما شن سنة بحق لها وحي كده أنت شن سنة وحق لها قول هذا إنك كهذا ما تكدك أي كده أنت هاي إن لي هذا وقت آن لجارين وحكى هرية كي جورتيجا دورشدي جورتيجا يا دورشدي مدحتوية لا بدأ بحلا قبته كنا مالين تهذا ديار بانون هاي كمان نحمين وما تنتي إنجنير فيصل على ورابع يا سنايم كهذا بدو يربح الدنيا بدو بحنيو إنجنير فيصل على ورابع هاي دا بدو يربح بدو بحنسين عجب ماسك سيارتنا الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يا محمد سبحانه وتعالى وحنا دي شيء وطعاو قورتا وحنا سوكعي ما انت قلبتي وركي وسيد دايه وسيدك وفافين وركا سورتا ما انت وها ور سومان لان هورسيديا خلق السياسات هي اسكهوريمات adduunkii loo soo jeedayna shok gelinaya ayuu ahaa waxa weeye wasiirku maanta hadalkiisu hadal mas'uul mu ahayn hadal dal u tulaya mu ahayn hal Soomaaliya u tulaya ma ahayn shacabka Soomaaliya 10 sano dagaal bay ku jireen 30 sanana waxay ku jireen aqoonsi la'aan oo maanta wada ogtihiin oo سيدتك نكون نورين ولكن ما أنت لو تهلين ما تسيدين وسوي هلين سكولك هلين بيلانتك هلين عفوا حمانتك هلين دو حمانتك هلين سومالنا كل شيء ما يسعينك وحوي الشرعي كان مركو هرنا فورنيكا أنا اللي اسمي ما أنت أنا وحلو سمي أصحابته لو سمي مدحوينه
كوميركيسا قبا أينتو هاوسني كجوتي دستور أيو سوعي برلمان كي وياه إسنا حق بقول هاي إنه واجبات كيسا وكجوتو لكن مدافعين وحو قبا إنه شرعي أو فرين إنه كورو كان مغلمين إنه كورو لمشي سومالان كل أدين ميس وين هورث سومالان أو كان قران يامو كل أدين ميس هي سومالان وحليها قفيو قران كلا دورت مدحوين موسى هدوه شنتي سنة إيمان سواه وإلى أصحاب ما جرتو ودستوركي waxaan soo celinay shahaadadiisii laba wadaan oo furan inaan shan wada tashi qaran isku yeedno oo gabiga Soomaaliland ba dib loo eego go'aankii ba dib loo eego yaano dadka isaa ku jiri maayo dadka iyagu dadku jira maayo kolay intuu madaxtooyada fadhiisto wiilaa madaxweynaha ahay oo caaniyo timir isku cuno oo shacbigu baaboo isku jiri maayo qaran baan u baahnay هذا قال هو ذي كرويدي هذا ذي كرويدي ما بربريس شعبنا وحلاها قف هي قرن كقيمة بدن هو وصوص صاري شعب الصوص صارينا الدنيا وهذا فرا لها بعلانا هذا اللي هو أبل جودة يسنها لو كردي وقت لو كردي يا مجر دستور بالو الصعونية طلقنا ولا اللي سادون تكي يلمس سادون تكي يلمس waan kugu eegnay waa ka xishoonnay dadkaan u turnay hadda waanu taaganay halkii meel u dambaysay nacam aanad ahaanin madaxweyne haddaanad sharafta madaxweynaha ilaalin distoorka ilaalin dadka Soomaaliyeed ixtiraamin oo tan doonay yeeliya ma soconayso shacabka dul waxa uu dul qaata waad ogtahay guryahooda burburiyeen dadkooda burburiyeen say maxamed salaam uga dagaalameen maanta wax ka fudud ma jiro impeachment baad geli kartaa shir waxaan geli karnaa waa tashi qaran kii booramaad ku qabataan ku qaban karnaa 93 cabdiraxmaan laga tashaday waa laga tashaday haddaad xabta joojisay wixii aan ku heshiiyay joojiso waa laga tashaday maga waxaan leeyahay kuwa u heesiyoona waxaad eegaysaan eega qawaaqibada ka dhalan doonta distoorkan ku soconayna guurtida doorashada gelina xulusiyada la xuli doono madaxweyne waa la qabanaya biidni Ilaahi kariim ma joojin kartid shacbiga ayaa ka xoog weyn rabitaanka ummadda ka xoog weyn afar qof oo xaasidiina oo hebel iyo hebel u jeeda ummad Soomaaliyeed ma hogaamin kara tiistooda lagu soconay sharciga lagu soconaya marka waxaan leenahay madaxweynaha caqliga aad ku soo celisay ku shaqee doorashadii ma diyaar garoobayna badanna inoo qabo isku imaanayna